shakhsiyan jenaraal indhacda adiga maxaad ka taqaanaa Fahad Yaasiin aqoon intee leeg ayaad u leedahay shabaabna uu yahay godane wariya qaaskaa godane uu yahay halkaas anuu ku og ayaan waxaan arkay habeenada ka mid ah inuu xabis madaxweynaha ka soo baxay soo agaasimaha madaxtooyada ah ayaana sidii nin isla taaganaan ag maray waxay ugu egtay cabdiraxmaan cabdishakuur habeenkii la weeraray maalintii ka dambeeyay abbaara 5 saac ayuu isoo wacay waa dembi waa dembi cadaaladaan jirine buulle maxkamad in la saaraba saaxiibkay wiilkayga waa aniga buulle xalaaliyaha guuda gobolka shabeellada hoose u yahaa aniga anuu i ahaa waa isna ugu yahay ummadda dhamana waa taqaanaa marka waa in maxkamadda sare leedahay yacni loo dhaartay gabadhii aad ka daba tegahan yaa handada waxaa handadaas la weydiina haddaan sheego doorashaa lagu jiray in dhibaato timaadaan ka baqaay doorashada qaranku ay qalqal u gashay yaa oo ku sigatay yacni dhibaatada ikraan tahliil maahana kuwa ka badan oo 2 sano kor ay kororsadeen ka weynaa wax badan ka weynaa kuwaas inay ka hortagaan hadday rabaan inaan dalku qalqal gelin kuwaas inay ka hortagaan waxa eedeynta jeediyey waa sargaalkii ugu sareeyay doonka Soomaaliya ama agaasimihii ugu sareeyay isagoona carbaabay dadka ku lugta leh arintaas way loo beensanayaa ereyga ama hadalada ka soo baxay Fahad oo sirdoonka Soomaaliya haystay maadaama hadda aad sheegtay in xoga sirdoon aad kiiska ikraan ku faafaynayso waxa loo diidayaa adiga ya maanta halkaan aad fadhidaa anaad u waraysane waxaad u leedahay aad ugu waraysato laakiin saacad kadib haddaan kala tagno awood ugu waraysata maleed haddii aad marka tiraahdo ya markii aan waraysanayay ma aragtay sax ma aanan ahayn haddii aad tiraahdo sax ma ah awoodda Fahad awoodu markuu awoodda lahaa ya oo hay-adda sirdoonka qaranka madaxda ka ahaa milkiilaha qaranka Soomaaliyeedna uu ahaa ayay ahayd inuu tilaabo sharciya qaado hadalkiisa ma la qabanayo hadda sharciyan ma la qabanayo ma la qabanayo waana kugu elaaye sharciga islaamka iyo midka mudaniga midna Fahad hadalkiisa ma qabanayo Fahad waa eedaysane saa dacwo loo qaba waa inuu garba wax uu sheegana waa baadil ma la qabanayo waya waxa kamid ah hadalkiisa oo mid aan dul istaagi doono dabcan intaan ognahay waqtigaas waxaa jiray xaalad doorasho wadanka gaar ahaan waxa si gaar isku hayay xafiisyada wadanka ugu sareeyay midka ra'iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha oo Fahad waqtigaas si gaar loogu tirinay inuu saaxiib u leeyahay madaxweynaha wadanka miyaanan loo fasirin karin ama aysan ahayn in gabadha loo dilay iyadoo hay-adda sida uu sheegay waqtigaas tashwiish lagu furayo ama ugu yaraan dagaal siyaasadeed laga abuurayo adeer horta waxaan fahantaa waxaa wax tashwiish fura qofka yani asagu raba inuu wax la cararo wuxuu samaystaa waxaas oo la cararaa oo difaac u samaystaa si ula cararo nimanka la sheegay waxba la carari miin wixii lala carari lahayn hala dhigo ma fahante arrintaas gabadhoo siyaasi maba ahayn waxay ahayd qof shaksiya oo la dilay oo mudan in xaqiisa la siiyo ayaan ilaahay waa ka lumiyey ilaahay qofku lumina adana ma toosi karto waa in inta la fariistaan waalidkii gabadhaan dhalay ay dhaan war gabadhii waa dhimatay sababahaanayna ku dhimatay ay la xaalaan laakiin yani ilaahay waa loo qofku alla luminayo adana ma toosi karto marka adeernimo wax la cararaa iyo niman la war waxaad idin dhiga oo ummadda waxeeda u dhiga kee wax dilaa adaan su-aashta ku weydiinaa kee wax dilaa kee dhib geysanaa kee difaac samaysana waxaa samaysanaya
fahad iyo farmaajo wax la cararaay ma fahanti wixii la cararaayay wax kamid ah gabadhaan usoo dhex gashay ama farmaajo ayay gabadhaan xokanaysa farmaajo xoqaasa ka yida gabadhaan oo u dhimatay ama xog kaley ka haysay nimankan hay-adda madaxda ka ah ama shaki ay shakiyeen horta sidaas qodob gabadhu mid u dhimatay nimankaa gacantooda ku dhimatay waa tahay waa la isku raacay gabadhan ay dhimatay oo gacanta nabasuuda ku dhimatay waaya fahad yaasiin xaaji daahir dabcan waa nin 5 sano ee lasoo dhaafay si weyn maamulkii madaxweyne farmaajo ugu dhex muuqday waxyaabo badan oo dowladda ka midana si gaara isaga loogu saarinayo inuu talo iyo go-aamo ku leeyahay inagoo aadi doona qaybta eedeynta u jeediyey mahad salaad kiiska gabadhan iyo fahad yaasiin eedeynta u jeediyey xagee ayay ku wada dhammaan karaan ay kula tahay horta waxay ku wada dhammaan karaan sharciga waa maxkamad sharciya oo cadaalad ah oo aysan ahayn xilaalihii guuda arrintaa galay saaxiibkay buulle oon asna ogahay ana asna ogyahay ana aan ogahay meeshuu arrintaa uga haray inuu lafihiisa u baqay oo la yidhi lafahaaga u baq laakiin aan aaminsanahay maanta inuu sheegi doono marka waa sheegi karaa hadduusan shabaab ka baqayn cid aan ahayn oo cadaalado maxkamada in arrintaas loo dhiibo keliya u baahanta waay waxaa soo hadal qaaday xerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka side axmed buulle dabcan saan ognahay wuxuu ka mid ahaa raggii inta ka hadlay tv-ga qaranka ee caddeeyey in fahad yaasiin cabdullaahi kulane iyo yaasiin faray inaanay wax luga ku lahayn iyo sidoo kale saraakiil kale kiiska gabadhan maxaad nooga sheegi kartaa waxaa ku qasbay xeerlaaliyu inuu sheegay iyadoo fahad uu sheegay inaanu ka warqabin goorta lasoo eedeeyey iyo goorta xeerlaalintu sheegtay inaanu dambi lahaynba horta waxaa qalada xeerlaaliya maxkamad maa dad ma beri yeelo cid kastoo sharciga taqaanaa taqaan xeerlaaliye dembiguu soo oogaa dembigaas uu soo oogo ayuu daba socdaa waxaa beeniyo dembigiisa yihaa dembigaagu ma jiro waa garyaqaanka xukunka loo geeyo oo yani ninka laakiin xeerlaalintu waxay leedahay inay ka laabato sug male dacwaddu fiiri qofka haddii inta lasoo dacweeyo oo maxkamad meel la hor keeno sharciga islaamka qofkii soo dacweeyey dacwadan wax ka noqda ma dhihi karo sharciga islaamka haddii ay ka soo aroorey cinqaabo dacwadaas haddii cinqaabo ka soo aroorey ya ma dhihi karo qofku ma cafi karo qofka banaanka ku cafi karaa ninka ladaa buule iyo xeer ilaalintu waa dacwo oogis waay dacwo oogis waay dacwada wuxuu la noqon karaa wuxuu dhihi karaa waa la noqday lama noqon karo laakiin yani systemkan sharci maahane lagu dhaqmo wuxuu dhihi karaa markii uu soo fariisto garsooruhu oo dacwada la qaado ayuu wuxuu dhihi karaa dacwadooda waa la noqday inuu yeelay inuu didana garsooraha xaq u leh garsooraha xaq u leh laakiin si jiraad inta qabto waa dembi waa dembi cadaaladaan jirine buulle maxkamad in la saaraba saaxiibkay wiilkayga waa aniga buulle xalaaliyaha guuda gobolka shabeellada hoose u ahaa aniga anuu i ahaa waa isna ugu yahay ummadda dhamana waa taqaanaa marka waa in maxkamadda sare leedahay yani ilaaliyuhu garsoor isu bedelay ilaaliya maayo inuu yidaa cidaa beriyaan xaq uma lahayn shaqadiisana ma ahayn maxaa ku qasbay kula tamaa waa la hendaday waa loo dhaartay gabadhiyaad ka daba tegaale yaa handaday waxaa cidii handadaas la weydiina isagaaba nool waa tahay
طبعا موضوع أنا بوحو كسابه ما أنت إنهم فلقين ورئيسي فهد ياسين شخصيا جنرال إند عد أديك محاد كتغانا فهد ياسين أقول أنت لك أياد ولا ده فهرت أنا وحنبر تصوري اتحاد كنا كترسن أيام برتي برجع محكمة أنا سفانا مبرت واجي أنا إذا ما إثيوبيا اللي دري أنا wararku laga qaadi jiray oo dhulku lagu imaan jiray kadibna wuxuu ku milmo la haray al-shabaab ninka kenya oo gudana waraysto waxaa jira halkaas anuu ku og al-jasiirana uu shaqeeyo shabaabna uu yahay gudane wariya qaaska gudana uu yahay halkaas anuu ku og ayaa waxaan arkay doorashadii xasan sheekh asoo siyaasadda ku dhex jira ayaan arkay magaciisa saxataa ma arag magaciisa fahad waan ayaan meelaha ka maqlay halkaas ay ugu dambeyday haddana fahad ayaan maqla farmaajo waxaan maqla taliyaha madaxweynaha habeenada ka mid ah inaan xabis madaxweynaha ka soo baxay soo agaasimaha madaxtooyada ah ayaana sidii nin isla taaganaan ag maray telefoon oo ku hadla markaan soo noqdaa ninka ma aqaana hadda wuxuu ugu yiri ninkan ma taqaanina fahad ma taqaanina fahad waa aqaanaa waan iska ag maray waxay igu egtay cabdiraxmaan cabdishakuur habeenkii la weeraray maalintii ka dambeeyay abbaara 5 saac ayuu isoo wacay wuxuu ugu yiri madaxweynaha iri soo gal taliyan waa soo galay waayahan anu diyaaradda geera ma haystee laakiin waa soo baxa fahda ay la soo hadlay subax dambe 5 saac wuu madaxweynuhu lacag u diraa xagaan kugu soo diraa lacag uma baahnin fahdi anaga halkaas barashadeenu ilaa intaas laagta maqalli arag laakiin mar bisor fariisan ma waa soo fariisan warasi uga qaado wiilkayga waayo ana idaacadda halkan ka furayd tasiiro ana ba ilaali jiray oo taageeri jiro maaragtay ciidan iyo ana dusha bana ka ilaali jiray laakiin al-jasiira asagii kaliya ma ahayn laakiin asaga team leader meesha uu ku soo baxayba oo jasiira markii hore wariye ma ahayn al-jasiira toosa wariye wararka ay ka qaataan iyo wax qorqoro ahay markaas yani oo maxkamadihii iyo oo noqday waa yani wariye facaal ah al-jasiira qaadato markaas uu noqday waxaan ka hadlayaa 5 sano ee ما اسمه نور فريس ما اسمه نور فريس وطهي ما أنا من الناس نور فريس مرنا إلى نور فريس إنه ما أنا ربين نن أو السؤالك إنه ذلك ليه يا إلى نور فريس تو أنا كم إذا ضدك أولي ملك يدع مرنا ما أنا ربين لأن يمكن يمسي معي